marka cognitive behavioral therapy waxay ka dhigan tahay xanuunkan qofka haya badanaa waxaa ka mas-uula sida uu qofku u arko ama u fikirayo. marka haddii sida uu u fikirayo wax laga bedelo shucuurtuu dareemayna waxbaa laga bedeli, habdhaqankiisa ama behaviorkiisana waxbaa laga bedeli. haddii anigu aan masalan ka cabsanayo jiir markuu meeshan yimaado markaa waan ku idhi iiga waran maskaxdaada maxaad istiraahdaa markaad jiid aragtid maxaa maskaxda kusoo dhaca. marka waxay tiri waxa maskaxda kusoo dhaca uu cunay cabsi xun baan daraa wadnaha ay booda maxaad samaysaa waan ordaawe tiro meeli waxbaan dul fuulaa mugta. markaa waan ku idhi bal aan analyze gareyno fikraddan aad istiri weligaa maad aragtay baan qof intuu jiir cunay la sii sidoo qabriga laleeyahay qofkan waa la aasaya maadaamuu jiir cunay. markaa iyadii kalaaskii dhannaa baa qoslay mugta. markaa baan idhi maxaa ku habboon inaad tiraahid. markaabay tiri wii qaniini. markaa waan ku idhi imise waxoo kalaa ku qaniinaya. markaabay tiri waxyaabo badan bay sheegtay tiri waxaabay qaniinaya kuwa iyaga saa ma uga cabsata maya. markaa baan idhi iminka haddii aad bedeshid markaad jiirka aragto oo tiraahid wii qaniini intaad odhan lahayd wii cuni saa dareemi. markaabay tiri hadduu qaniinaya markaa dee waan nici laakiin ma sasayo oo ma boodayo. ficil ahaanna maxaad samayni dee waan iska joojigayo ama kabi waxbaan soo qaadano iskaga tuuray. marka waxaan tusay say u fikiraysay inay ka mas-uulahayd inay marna sasto oy boodo oy cabsato. so then marka cognitive behavioral therapy saabay ku salaysan.